السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مالك استجوبتان ومدة الصومالية waxaa idin leeyahay waqtiga heeri wacnaado halka aad iga jeedtaan walaa TV anigoo amar xaaj Jumcaale amarna kata maanta waxa wada haduu la yiraahdo barnaamij aad u fiican insha Allah sidii anagana la tahay oo ugu talagalnay bulshadeena Soomaaliyeed tala daawil barnaamijka tala naawil waxaan jeclaysanay inaan ila wadaagno haduu la yiraahdo waxyaalaha aan bulshada Soomaaliyeed ka soo aroorinay amba aan ugu talagalnay ummadeena inaan u jeedino maanta waxaan ila qaybsanaynaa haduu la yiraahdo qoysaska Soomaaliyeed qoysas kamid ah oo ku nool wadanka Soomaaliya dhibaatooyinka aad ay isaga badan yihiin maanta waxaan ila wadaagaa haduu la yiraahdo qoys Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed ayaan la soo xiriirtay oo joogto magaalada Hargeysa oo dhibana ah sheekada ayaa idin guud galaya waxay ahaayeen qoys Soomaaliyeed waxay haysteen caruur waxay ku koobnaayeen 4 caruur iyo hooyadood iyo aabahood aad ay isaga dan yar ayay ahaayeen dadka duruufta iska haysato waqtiga ka dib yimid ayay ahaayeen danta iyo duruuftana waa ceeb dadka laakiin way isku caayaan qoyska Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin magaalada Hargeysa ma jecla inaan magacooda meeshan ka sheego waayo armuuraha ay dadka oo iska dhibban yihiin adduunyada hadda waa iska xumaatay gabadha Soomaaliyeed waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo aad u qiimo badan hooyooyinka Soomaaliyeed ay u qiimo badan yihiin meel kasta ay joogaan waxaana sheekada ka bilaabanaysaa sida tan hooyada waxay ahayd hooyo 4 cunug haysato aabahana uu la joogay gabadha waa iska dan yar tahay aabahana waa ka sii daran yahay guriga ku wada noolaayeen Ilaahay wuu barakeeyay caruur iska siiyay qoys xalaal ah ummadda Soomaaliyeed ay ahaayeen dantii ayaa ka daba timid qof walba walaal ay garab weydiistaan amba ay la hadlaan wiilka shaqo doonto waxa la dhahay war naga tag war heer naga tag war saana waay war waa baba adduunyada waan isnaqaan ilaa dad bayna nahay Soomaaliyeena nahay dhibaatooyinka sii badatay hooyadii waxay go'aansatay iyadoo 7 bir dhalan in ay odaga la tashato qoyskana waxa ka dhaxaysa inay wada tashtaan ay talada wadaagaan hooyada iyo aabaha waa arrin fiican hooyadii waxay keentay talo wiilkii ay talo u keentay waxay tiri walaale baahi badan iyo bugta badan waa la isku nacahay tiri ee waxaan sameeynaa tala rabaa inaan ku sheego walaale asoo wuxuu yiri haye walaal soo daa wiil gabadha waxay tiri aniga waxaan jeclaysto walaalo inaad iska baxdid oo nimankan ummadan Soomaaliyeed meesha u yaaceen oo iska aadid oo walaalo maanta wujuhuma ma arki karnaa iska tahriibtido meelahaas iska aado israaqada Ilaaha bixiye farjin Ilaahay noo furo bal iska haajiro dadkii dalkii iyo ummadii wax waan ka weynayo garbadna waa weynay maanta laakiin waxaan jeclaystay inaad iska haajirtid wiilkii ay saas ay ku dirtay wiilkii wuu baxay halkaas iyo meelihii tahriibka u aaday waxa dhacday in wiilka meel ku xayirmo dahabkeeda ay gado hooyo waa fariid markasto walaal caawi xaajigaada daa caawisid adiga ay sharaf ku tahay adiga ay karaam ku tahay adigana ajra ka helaysa reerka in gacmo wada jir bay wax ku gooyaan far kaligeena fool ma dhaqdaa la yiri gabadhii waxay sameysay inay wiilka caawiso asagoo meelaha hawdka sii marayo atoorayaashii magafaha la dhahay magafihii dadkii tahriiba garanayo magafihii markuu tagay hooyada waxa ku taqeenin hooyo Soomaaliyeed kaabta la dhahaa hooyada Soomaaliyeed way kaabta dahabkii wixii yaraa ay haysatay ayay waxay geysay suuq ay waxay sameysay inay suuq geyso meesha dahablayaasha ay tiraahdo maanta dahabkeena wataa walaal meey gadanaysan haddana la bahdilay waa ogtiin qof baahan oo dahab qaaday haddana duruufta ka muuqato adduunkan waa harka labadiisa gelin lagu mudugto walaalka hadda maanta dhaantid waxay sameysay dahabkii bay geysay islaamii dahabkii ay yireen dahabkan dahab hore waayo saan waayo waxba ma gooniyo oo duruufteeda ka faa'iideysanayeen ileen waa aragtay dafo hilib dayacan oo iska cuntaay way daftaay haye waayo walaal meeqo ii goynaya intaas waayo dahabkaada saan waayo kiilaadkiisu fiican yahay laakiin walaal wuxuu ii gooyay gabadhii way gaday dahabka way ka soo noqotay xawaaladii tagtay lacagtii markay dirtay meeshii lagu diri jiray ku dirtay waa siyaasi ku qaawanta 0 waa inta u dambeysay waxa kama hagran waxba ma haysato waa hooyo nin ilmo qabana nasab ma aha caruur haday haysato qofka caruurta haysta waa qof maskiina oo u nugul wax kasto waxay sameysay dahabka way dirtay lacagtii way dirtay oo asagii Ilaahay wuu furdaamiyo tahriibkii buu galayo meelahaas Yurubtaas uu galayo Yurubtii meel kamid ah lagu soo dhaweeyay qaxooti ahaan loo qaatay hadda waa kaasaayo ninkii waa la soo dhaweeyay nasiibkiisa saaciday iyo ducadii xaaskiisa
kadibna ilaahay uu jeeda danta meesha taalo ilaahay uu ku caawiyay uu ku guuleystay in uu sameeyo ii sheeg imtixaankii qaxootinimo iyo sharci yar baa la siiyay gelin waxba uu bartaa gelinna in wixii la isku ogaayeeray meelaha la ordi jiro laga shaqeeyo Yurubta laga sheegay ayuu shaqeeyaa wiilkii ilaahay kuma daraaday wuxuu sameeyay gabadha telefoon uu siiyay wuxuu yiri telefoonkaana qaatay aniga waa li qaabil abaayo ugu aadan way sii dabareysay dhar soo dhaqdo alaab ilaha soo dhaqdo ilma intay ximbaarata kan ugu yar waa toddoba bari dhalan tahay asagana wuxuu maqan yahay bil amal haddana waxa cunugeel uu bil jirsaday oo laba bilood jirsaday cunugeerka dusha kama dhigto waayo dharkay ku dhaqaysaa dariskii u soo xamaalaysaa maalin dambe marka halkaas joogeen 6 bilood kadib arrinta waxay tiri bab wiilkii wiilka marka uu wacday oo ka qabto wuxuu yiri walaal waa la qaabil uu yiri ma sha Allah gelina hadda shaqo bilaaw rabaa waba shaqeeyaa shaqo bilaaw rabaa weeroon shaqeeyaa wuxuu yiri shaqo bilaaw rabaa kaas hay xaaji ilaahay ku fududeeyo daacada ma guudo laqdabo ilaahay meel mooda maraan wallahi waxay tiri dharkeedii caruurtii hooyas u kursi jirto hooyas Soomaaliya dibka way taqaan dhabarkan waa u dhigataa dibkii ku soo korsatay caruurteeda xoogaa way iska joogay wadana maalin kale wacda telefoonka laga qabanayo maalin kale wacda hadana telefoonka laga qabanayo way yaaban tahay way fikiraysaa maxaa dhacay leedahay maxaa ku dhacay eeda waxay ka fikiraysaa asagii ma la xiray ma dhib baa haysto wallahi billaah laba kala barada kala warla dhibkii ma haysto leedahay maxaa ku dhacay talo fikir kale u sii dheer baahida guriga ka jirta fikir kale u sii dheer waxa u sii dheeraatay inay isla hadasho ay tiraahdo maxaa ku dhacay telefoonkiisu u dhacaya misada loo dhaafaa misadkii oo fiirinaya telefoon direele canjarada iga qabanaysa leedahay way sameynaysaa cid diriska u tagaysaa waxay leedahay walaalayaal bal hadda waxa meelaha laga isticmaalo bal hadda qabtiin bal walaalaay ee gali cid dharka u dhaqdo waxay sameynaysaa walaalaay ee gali lambarkan meeshan saan lambarkii ma kala soo jawaabayo telefonkii ma ka qabanayo wuu iskala waayay waa la yaabay gabadha way yaaban tahay waxay leedahay talo maxaa ku dhaco xaajigi hay gabadhi kale waxay tiri walaalahay ninkii ma ku soo jawaab ana xal waa iska saak waa iska hooyday marka guriga idii hagaaji xalay bal warka isiibo walaalahay horta dharka dhaqbo war kuma haayeen ninka intuu fiiriyay telefonkii ayuu wuxuu noo soo jawaabay laakiin wuu fiiriyay ma soo jawaabin saas miyaha ilaaha talo ku filanay tir miskiinti way baxday dharkeeda iska dhaqatay hadda hooyo lagu yaqaan cid kale u tagtagtaa dharkeeda iska dhaqataa meelaheeda iska joogtaa warka yaa ka badinine ninkii isaga ahaa uu ku jisaaray waayo telefoon haduu qabanaynin message ka soo jawaabaynin dhibaato badan iska jirto hooyada iska burugsan tahay ilmihii u sii dheeriyiin cunuga adiga 2 bilood jiro 3 bilood camal maxaa qabanaya hilibkaada ilmahaada hilibkaada u karisid way iska cunayaan leema oga waa sabi talada idinka tala ilaaha iska leh gabadhu waxay tiri dhibkaas ay ugu dhacay dhibkaas aan haysto walaalayaal waan ila wadaaga idinkana waxa jeclaysan ummadeeda inaan ila soo wadaagin oo wax ka tiraahdaan maxaa balas la sameyn lahaay maxaa soo dhihi lahaydeen qofkaas bini'aadinka ilaa bini'aadin ma dhamo idinka talada idin taala waxa ku dar lahaydeen waxa ka dhihi lahaydeen hadda waa kaasa fariimaha noogu soo qora commentiga noogu soo qora dibanaha sooda Soomaaliyeed meeshaas joogto dhibkana la soo wadaago commentiga share-ka like subscribe-ka idinkii unka waa ka balanay walaalayaal garbaheena tihiin ma fahanteen idinka la antiin waxa ma nihin commentiga aan ka arko haduu Ilaahay yiraahdo waxa ka qabtaan amba aad dhihi doontaan ninkaas uu qaldan yahay ma qaldano commentiga idinka warsigeena waxa aad qisooyin haysiin insha Allah meel aan uga soo xiriirtiin Gmail ayaa sameey doona haduu Ilaahay yiraahdo amba telefoon haduu Ilaahay yiraahdo dhibaatooyinka waxaan jeclahay inaan la qaybsano dadkayga meel kasta joogan dalkii ha joogan dibadaha ha joogan qisooyin badan insha Allah waan ka soo sheekay doona nala wadaaga anigana insha Allah wadi soo gudbi doona haduu Ilaahay yiraahdo waa ida jecelna waxa tiin dadkaygi insha Allah hooyada dhiban dhibka Allah ka saaro oo duceeyno anigana qof walba dhibana dhibka Allah ka saaro meesha joogtiin idinkana Allah idinka nabad yeelo asxaabteena Allah idinku nabad yeelo waa amr xaaj macaal amrna ka taa oo idin leh hadda waa kaasa subscribe-kii iyo like-kii share-kii comment-kii waa codsi waa walaaltinimo waa Soomaalinimo wanaga wada dhaxeeya
hadda jawaabda aan idinka rabo waxaa weeyaan gabadhaas ma gardaran mase ninkaa gardaran ya kala daawilna la soco maalin kale insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo amran xaaji macaal amrana kataa laactii fi mar kasta insha Allah ku kulmi doonaa saacadahan oo kaleeto hadduu ilaahay yiraahdo barnaamijkan uu noo soco doonaa waxaan dadweynaha Soomaaliyeed waxay hayaan ra'yi iyo Gmail noo idin soo sheegi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo amba telefoon waa idin jeclahay dadkayga